يفلي هاينا وانو كويني هاينا ما جيرانو dadka saasay u buuxaan laba reer iyo saddex reer ba ku jira ardaga inay noola soo gaaraan wixii daan biyo ku shuban lahayn iyo xataa biyaha noogu daran oo iyo dabaqdin iyo xabad baa meeshana keentay nin walba waa soo barakacay inna meesha ma joogi jirin caruura wax loogu dhigi jiray anagu dadka iskuulka la keenay baanu nahay oo baqdinta iyo dayacu keenay dhaxan baan heshay oo biyo la'aan baan heshay oo hadii alla weydin waxa yahay gurbi joogtay garxajiis waxaan leeyahay niyahow lacagaha soo dira oo rag iska dhiga waayina fakawse rag baa horfadhiya inaan magaalada argaabo ku sideynay duniyada baa doonaysaan ismaaciil carri dirirta wala ya ilaahay wax siiyay miya lacagta u qaada oo qaybiya lacagaha soo dira dadku taana ogaadaan way magacayga horaan idinku sheegay lacagta boorka dara dayacu keenay dhaxan baan heshay oo biyo la'aan baan heshay oo hadii alla weydin waxa yagay bismillahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh muuqaalkan si share garay meel dheer gaarsiiya dhamaantiin waa Cabbaas Madani waxa rajaynayaa nabad qabtaan saddex qodob baan caawa dul istaagi doonaa arinta koowaad shacabka ku dhaqana xaafada suuqa sare ee Isaaqa oo dabcan baylaha ku ah yifle meel la yiraahdo oo galbeedka kaga beegan magaalada Corigaabo maalmaha waxaan arkaynay qoryo Isaaq oo meelaha ka maray Corigaabo aan joognaa Corigaabo waa degan tahay araba xaaladda Corigaabo aan ka warramo dadka barakacay ku diga meeno laakiin waxaan rabnaa inaan information idin siino arinta labaad aan ka hadli doono waxa kamid ah amniga Hargeysa iyo Burco iyo Berbera iyo Gabil oo runtii faraha ka baxay jilalka xalay ka dhacay gaadiidka la dhacay hay'adaha waxa weeye ka howlgala magaalooyinkaasi oo dabcan fariimo khatar amniga loo diray qodobka ugu dambeeya waxaan ka hadli doonaa 12 January waa maalin weyn reer SC Khaatumo ku weyn sanad guuradii 13aad ee asaaskii dowladnimada SC Khaatumo qodobkana waa faaqidi doonaa si shar garay muuqaalkan meel dheer gaarsiiyay ugu horreyn waxaan rabaa inaan saxo muuqaalka horeeyay dad badan baa commentiga aad baan u akhriyaayo dabcan wax dadku qorayaan aragti dadka weyn absolutely la akhriyo weeyo oo arahdooda la dhageysto waxa jira nin aan baahiyay oo habar awala oo qorlugu ka soo baxsaday oo isu dhiibay askarta SC Khaatumo ee furinta gobolka Cayn ninka dhalinyarada waa la hayaa dawladda gacanta ku haysa baaris baa lagu wada hay'adda weyn ee masirtoonka SC Khaatumo ayaa baaris ku wada qofka la soo qabto markiiba tii la soo qabto ciidanka lama dhax keenay baaris baa la maraya marka arintaas waa arin dawladeed weeye nin Isaaqa oo kooxaha nabadidka argagixisada ka soo baxsaday intii la keenay ciidamada la dhax karo si fudud lagu aamino waruuxaasi meesha ma taal dadku inta ogaadaan way baaris baa la maraya waa la baaraa marka dadku inay taas fahmaan waa muhiim weeye ana saxaan rabaa qodobkaas waa qodob tuulo la yiraahdo Yufle waxa buux dhaafiyay dadkii ugu badnaa oo barakacyaal ah oo haween caruur dad shircsan dad xanuunsanaya adigu barakacyaal baa gaadhay halkaasi ka qaxay dagaalkii Corigaabo gaar suuqa sare ee Isaaq u degaan dadkaasi absolute hay'adaha u baaqeen la soo caawiyo wax kaalmo ay helaan ma jirto waa ka xumahay dad Soomaaliyeed weeye inay qaxaan wiilashooda ka shaqeeyay inay qaxaan maamulkooda argagixisada ee taageera khawaarijta argagixisada ayaa ka shaqeeyay waa laga baaqsan karay oo taasi waa laga baaqsan karay laakiin cidda argagaxa ku abuurtay ee fadhisay ma aha dadka hartiga Corigaabo degan ee xaafadooda yimid ma aha ee caawin Corigaabo dul fadhiya ee waa cidda u horseeday in maanta bacadka ay jiifaan waxaan ku talinayaa hadda waxay ku sugan yihiin meesha la yiraahdo Yufle war Corigaabo ay soo dhaafiyeen yaana Yufle ka qaxin ila dagaalku waa dheeraanaya dagaalku Corigaabo ku koobnaa maayo Corigaabo marka lagu kala adkaado oo kooxaha nabaddiidka ee khawaarijta ee argagixisada ee ku dhuumaalaysanaya xaafadaha Corigaabo marka agta la mariyo la soo aftiro dagaalku Corigaabo ku ka maayo ogaada Yufle la isugu imaanaya oo hadda idinku waxa weeye aad u soo qaxdeen maanta wiilashiina waxay qaxayeen weeye hooyooyin Soomaaliyeed way ku digan mayno waxa la wiilashiina ay qaxanaya yaani Yufle ka qaxin taas waa qodob Corigaabo waxay noqotay goob u ah saldhig kooxaha nabaddiidka argagixisada cisbitaalkii meelaha waxa lagu daweynayaa kooxii Daesh argagixisada ahaa ee waxa buuraha lagu dagaalamayay ba cisbitaalada Corigaabo lagu daweynaya oo saanad hubka loo qaadaya oo
adigu saldhig u ah arrintu way ka tagtay qabaayilka harti iyo isaaq way ka tagtay maadaama kooxo nabadiida ay saldhig u noqotay dagaalku sidoo hore ka duwanaan doonaa waxa weeye insha allahu tacaala kooxaha nabadiidkaana waa la soo afjaraya waa qodob arrinta kale waan rabaa inaan idila wadaago waxa weeye isaaqi meelahan ka hadli jiray oo oran jiray ergaabaan joognaa ergaabaan nabada ergaabada nabada waa tahay ergaabada hooyada iyo eedada ay ku nagaadi waayeen Soomaha hooyada maanta ay beeraha ka tahay ee banaanada dhaxanta ku dirso waliba iyadoo aan ognahay ergaab wiilkeedu maanta inuu waxa weeye xilli qabow u yahay ha ku ila ergaabaan joognaa ergaab waa nabad muuqaalo hore waa horeetay soo qaataan u daara u geey ergaab waa goof dagaal bay noqotay koonfur iyo barina ciidankiini baa ka fadhiya iyaguna magaalada waxa weeye bartankeeda iyo gudaheeda iyo banaanadeeda ayay dhufaysi ka qoteen meeshaasna waa lagu kala baxayaa si toos waa lagu kala baxayaa absolutely taas oo qodob weeye arrinta kale durbaba askartii kooxaha nabadiidka ee argagixisada waxay bilaabeen inay shacabka weydiistaan dhaqaalo gaajadii baa gaadhay xanuunkii baa gaadhay ila dhageysta askarigani waa askari ka tirsan kooxaha nabadiidka ah oo ceergaabo ku sugan hadda kore waxaan idila wadaagay muuqaal isagoo madaxa duuban ayaa idila wadaagay marka madaxu la soo baxay wajigiisa rasmiga ayuu sheegay wuxuu leeyahay waa noogu rida wariyaa ilaahay wax siiye uu leeyahay wariyaa ilaahay wax siiye war noogu rida shacabka raba in la baadho qurba joogta ila dhageysta kan waxaan kala hadlayaa qodobkaygu daaran yahay qurba joogta garxajiisa waxaan leeyahay niyahow lacagaha soo dira oo rag iska dhiga waay afka hoose rag baa hor fadhiya inaan magaalada Argaabo ku sideynay duniyada baa doonaysaan Ismaaciil Cariye dilirta waa la yaa ilaahay wax siiye miya lacagta u qaada u qaybiya lacagaha soo dira dadku taana ogaadaan way horaan idinku sheegay cagtay boorka dareen sababta way ganacsigii boose ka iman jiray waa xidhmay magaalada shacabka waa ku kala qaxay meheradi waa xiran yihiin goobii ganacsigu waa xiran yahay ergaaba goof dagaal bay noqotay goof colaadeed bay noqotay waana meesha waanka ugu badan ee Soomaalidu ay adeegsan doonto noqon doonto magaalada Argaabo noqon doonta sida marka laga sifeeyo kooxaha nabadiidka inta soo qodobka waxaan ku dhaafayaa dadka hartiga ama Argaabo deegaana ku ahaadaan ama dadka soo gurmeeyay ciidamada ha ahaadaan waxaan idin ka codsanayaa xilliyada colaadaha laba arrimood baa laga feejignaado kow dadkan lala diray kooxaha nabadiidku ku hoos dhuumanayaan waa dadku isdhaleen way waa isdhalay abti iyo wili abtigi baa la suuya waxa ugu badan xiliyadan oo kale colaadaha saameyn ku yeeshan way waa sirtaada xogtaada inay baxdo waxa xogaha bixiyana waxa ka dumarka ka waxa dhici karta in gabadh iyo doora oo ka soo jeeda kooxaha nabadiidka inay ku dhaxday ama gabadh waxa way inaga ay u dhaxday kooxaha nabadiidka meelaha xogta sirta laga helay meelaha weeye horta goobaha ciidanka laga fogeeyo si hawlgalkan kooxaha nabadiidka in la soo afjaro uu guuleysto oo loo soo gabagabeeyo kooxaha argagixisada waa in arrinta laga fogaadaa oo waa qodob arrinta dumarka inta labaad dadka horgalada waxa jira dadku isku aragti ma mid waxa weeye aan damiir lahayn baa jira oo laaluusha cad qoorsi qaadanaya in laga fakaro oo feejignaan balaaran la sameeyo oo xogtaada sirtaada ciidankaaga gurmadkaaga gaadiidkaaga hubkaaga saanadaada aan cidna la duubi karin waayo haddii xogtaada baylaha noqoto cadowga argagixisada baa helaya marka taasna in laga feejignaado wey dadku waa ogahay muddo badan baa la isdhex galay integration baa dhacay waxa weeye wili abti baa la isku noqday laakiin aragtida meeshaas ku haysa waa aragti argagixiso oo khawaariij iyo aragti Soomaaliyeed weeye tii qabiilka meesha way ka tagtay qodobkaasi taas ku dhaafaya waxaan qodobka labaad xalay magaalada Gabiley waxa lagu dilay in lagu magacaabo buux mire oo beesha Arab u dhashay ninkaasi madax duub baa lagu dilay askari buu ahaa waa sawirkan aad muuqato waad aragtaan wax dilay ilaa lama yaqaan wax dilay ilaa hadeer lama yaqaan amniga magaalada Hargeysa iyo Berbera iyo Burco dhammaan faru ka bax waxay galeen hubinti la'aan bay galeen waxa taas sababtay jabhadee noqdeen nin walba qorigiisu sitaa reer walba jabhad buu noqda haba jabhad gaara wey garxaj jabhad gaara wey habar awal jabhad gaara wey arab waa jabhad gaara wey
marka hubinti la'aan bay gashay amnigii furuu ka baxay marka qolo walba jabhadii nabadiidka ee khawaarijta argixisada ahaa qolo walba qofkii doonaysa bay ka argoosanaysaa hadda ma ogta hubinti la'aan baa marka dhacday hay-adihii marka ka howlgalayay magaalooyinkaasi dhammaan warning baa loo diray oo la yidhi amnigiinu khalkhalba ku jiraa badankoodu waaba ka baxeen intii dagaalada la soconad baa hay-adihii badankooda ay ka gurmeen magaalada Hargeysa iyo Burco iyo Berbera iyo Gabileyba intii ku harsaneedna xalay bay u dhamaatay markii gaari ay leeyihiin shaqaalaha Taiwan oo FIA la dhacay cid dhacdan lama garanayo maxduubkii baa bilowday dhicii baa bilowday boobkii baa bilowday hantida amniga iyo kala dambeynta waa luntay sida awgeed hay-adaha internationalka ee ku sugan ee ajnabiga waxaa loo diray waraaqo fariimo ah oo warning inaan la isku halayn karin hadda ciro ninka xiran odagii cireedii sheegi jiray hadii la kuureeyay cusbada laga ilaaway imika wuxuu isku dayay inuu yiraahdo jabhadihii baan qaraameynayaayo ku kaasa waa qanaabay ku kaashay waa kuwa reerka uu tagay karo kala ciidankana qarameeyay reer walba way reer buu haystaa reer walba reer buu haystaa marka taasna waa qodob hubinti la'aan bay galeen kooxihii nabadiidka ahaa wax walban asalkiisu tagaa asalkood baa yimid waxay ahaayeen bay maanta tageen maxay ahaayeen argagixiso madaxduubka Soomaaliya iyo Soomaalina burburiyo iyo Soomaaliin qaraxyo lagu abaabulo iyo Soomaaliin hubinti la'aan la geliyo inta ka shaqeysa wayaga weey waxay ka shaqeynayeen 3 sano maanta waxa weey gudahooda maanta timid oo kuwa maanta jabhadaha isu dilay oo kuwa maanta madaxa isu duumanay oo kuwa maanta kala aarsanaya in badan baa la jabhada argixisada oo jabhada argixisada oo ruuxi meel aragtaan madaxduub meel aragtaan gaadiidka oo dhacay meel aragtaan jabhadii meel aragtaan kala aragtida duwan kala magacyada duwan oo wixii sheegay intaasna waa qodob weey waxaan ku soo gabagabeynayaa 12 January maalin weyn baa soo fool waa maalintii dhidibada loo taagay dowladnimada ay si qaatay waxay 12 January 2012 13 sanadood baa laga joogaa waa maalintii deegaankan laga saaray dhibaatada siyaasiga ah oo deegaankan in loo kala qiimin jiray maamulo in loo oran jiray reerkaasi ama reer SSC qabaayilka dowladnimada Khaatumo ka midoobay maalintii laga saaray khalkhalka siyaasi weey oo ay sameysteen astaan iyo sumad weey marxalada kala duwan dagaalkaasi halgankaas soo maro laakiin hal meel baa waxa la biyo meel godob isku yimaada meel baa la isugu soo oray waana 6 February 2023 oo dadkaas ay maamul iyo nidaam iyo haykal dowladnimo ay yeeshaan ilaahay fadligii guushaas imadeena ilaahay waa suransiiyay xaqdur bay ahaayeen maxaa loo baahay marka maalmaha caamka ee national day-ga in la ilaaliyo oo aad loo dabaldugo oo dhalinyarada soo koraysa waxbarashada loogu daro manhajka loogu daro marxaladii soo maray dhulkan iyo deegaankan cadawga uu leeyahay in loo tuso in wax la baro maalinta waxa loo baahan yahay muwaadiniinta si Khaatumo gudaha dalka ay joogaan dibadda ay joogaan inay u diyaar garoobaan maalinta weyn ee qiimaha leh ee qaayaha leh oo degmo ilaa tuulo ilaa magaalo caasimad ilaa gobol laga dareemo ma farajeenaya waxa ugu badan ana sameysay astaanta calanka SSC Khaatumo aad qaadataan goobaha fagaarayaashana ku soo badhigtaan habeenka 12 January markay tahay bariyo kale maalin 12 January habeenka weyn sharciyo isku soo baxdaan wayna dabaaldegtaan dabaaldagaas kaliya noqon dabaaldeg iska socday wayna u duceysan haliyadii inay nabadgelyo ku noolaataan inaad ka adkaataan kooxaha argagixisada khawaarijta ee argagixisada inaad u duceysaan oo ilaahay jannada ilaahay firdaws geeyo barajeena insha Allah maalinta loo diyaar garoobo hal la muujiyo taasna waa qodob dadka waxaan rabaa inaan gaarsiiyo muwaadiniinta hal loo diyaar garoobo maalintaasi si weyn way maalinta loo dareemaa insha Allah ta'ala intaas barnaamijkeena caawa ku soo gabagabeynaya heer badan bay leeyihiin insha Allah ta'ala si shargareeyo